الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan doonayaa maanta inaan sii wadno casharadeenii kuwa buug ahaa. waxaynu bilaabaynaa qaabka loo dhiso ama loo abuuro company cusub. waxaynu tegaynaa halka marka barnaamijku soo baxo file baa tegaysaa. marka file tagtaan waxaad ka dooranaysaa new company markaad ku dhufato waxaa kuu soo baxaya qaabkan bay u ekaanaysaa shaashadu. markay qaabka u ekaato waxaad ku dhufanaysaa mouse-ka halkay ku taalo advanced setup markaad ku dhufatid waxaad u bixinaysaa company-ga magaceedii. iminka waxaan u bixinayaa Somali community baan u bixinayaa company-ga community. markaad u bixisid halka legal name-ka inta badan inaga business-deena legal name-ka iyo company name-ka waa isku mid. waad ku soo bastigaraynaysaa. markaad ku soo bastigaraysata ka soo dhiganaysaa halka ID haddaad leedahay waad gelinaysaa street-ka iyo meesha ku taalo xeeradaadu, magaalada, wadanka. haddii aan wadamadaas aanay mid ka mid aanad ahayn waxaad dooranaysaa others-kaasaad ku dhufanaysaa phone number-kaaga iyo gmail-kaaga waad gashanaysaa haddii aad u baahan tahay. haddii kale next others ka dhaafisa. company baan sameynaynaa. halkan waxaa uu inoo soo dhigayaa qaybaha uu ka kooban yahay kombaniyada jira ama business-kaagu uu noqonayo. markaas waxaa laga yaabaa inuu yahay business-kaagu mid iibiya product oo waxweynta business-da Soomaalida ay fara badan yihiin. markaa waxaad dooranaysaa general product based business. next baad dooranaysaa. next marka tiraahdo halkan wuxuu kuu soo saarayaa how is your company organized, sole proprietorship, partnership dad baa wada leh baad dooranaysaa. okay haddii qof qaliya leeyahay waxaad dooranaysaa sole proprietorship. haddii laba qof iyo xoogaa wada leeyihiin kaasaad ku dhufanaysaa. haddii ay shirkad tahay dad fara badan 150 meelaha gaaraya ay leeyihiin waxaad dooranaysaa corporation. iminka shirkadan qof kaliya waa leh saawda waad ku dhufanaysaa next. halkaa wuxuu ku leeyahay select the first month of your fiscal year. xillimaad bilaabaysaa xisaabaadka maalinta aad garanayso waa maalinta programka company samayso waa maalinta xisaabta ku qorayso. markaas waa January oo deyso next dheh. haddii aad password u bixinayso aad ku xiranayso shirkadaada halkaas aad gelinaysaa 1 2 3 ba geli. mar labaadna ku celi 1 2 3. okay next dheh. markaad next tiraahdo waxa weeyaan markaad halkaa marayso waxa weeyaan create company file-ka ayuu qoranayaa. isaga meel ku dhigayo inta badan company file-ka programka uu ku dhigayaa. okay meesha oo dooranaysaa dhigaysa. hadduu company file ku soo halkaas aad u deynaysaa dhiidaad ka dooranaysaa. haddaad doontaad dhigaysa dhiida open baad dooranaysaa. halkaas aad dhiganaysaa company file-kii ayaa soconaya oo is abuuraya. marka halkaa marayo isagaa wadaya markuu dhameeyo okay halkaas uu soo saaraya next baad oranaysaa. markaas aad next tiraahdo eebankoori aad dhaafto tan wax weeyaan halkan waxaa what do you sell maxaad iibinaysaa ma service adeeg baad qabanaysaa kaliya ma product kaliya mise labadaba. inagu labadaba waan qabanaynaa. okay next baad oranaysaa. halkaas tax man ku saaga ama cashuur maya iska dhaaf taasna waxa weeye estimate iyo xamiya doonaysaa ha iska dhaaf isaga kugu recommend gareynaya meelaha fiican iska dhaaf taasna. halkaas waxaad dooranaysaa inventory tag waad ka qaadaysaa yes baad oranaysaa waad iska dhaafaysaa. kaasna waxa weeye saas u daa. halkaa shaqaalaha ma leedahay ha intaas baan leeyahay baa ka soo qaad intaas ay u dhaxeeyaan. okay halkaas date-ka mid bedelaysaa buu leeyahay. hadeerta aad soo doortay January intaa ahayd haddaad bedelaysaa halkaas ka dooranaysaa. aad bedelaysid maanta aad ka dhigaysaa. haddii kalena waan bedelayaa maanta waan ka dhigay intii hore marka January khaldantay. markaa maanta waxaa la marayaa 11 bishii 2018. okay baan oranayaa saas muuqaalka ugu muuqanaya next set up. congratulations buu kusoo saaray. marka wax weyn already shirkadda waad samaysay way kuu samaysatay. markaas waxaad dooranaysaa start work marka tirahdina wax weeyaan daaqadan iska xidh tanna iska xidh oo tashaashadaadii dhinacan baad aragtaa. dhinacan oo kale haddaad doontid xagga sare ka dhigtid halkan baad tegaysaa. waxaad tegaysaa view markaad tab toolbars xagga sare xagga sare kuu geeyay. tanna waad ballaarinaysaa. qaybaha uu ka kooban yahay iyo qaybahan waan sharaxi doonaa insha Allah. intaasaan maanta ku joojinaynaa casharka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.